kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada halkani waa wadayda la TV magacaygu waa Muxidiin Maxamed Cabdullaahi waxaan ku suganahay stadiumka ugu hadalhaynta badan tartanka tobnaad ee ka socda guud ahaan deegaanka Soomaalida goboladiisa oo ay ku loolamayaan degmooyinka deegaanka Soomaalida ka kooban yahay hadda waxaan joogaa gobolka Erer xarunta caasimada ah ee magaalada Fiiqo ka socda tartanka tobnaad ee 8 degmo tartankan sanadkan waxyaabo fara badan ayuu kaga duwan yahay tartanadii hore idinka hor dhici maayo waxa ila jooga focalka iyo sidoo kale madaxa federationka ciyaaraha ee gobolka dabcan Erer ay ila jooga iyaga ayaan ka wareysan doonaa ugu horeyn Axmed Cabdulle ayaan soo dhaweynaya Axmed Cabdulle soo dhaw waan dhawahay mudane aad iyo aad baad maadsantahay waa gartay ugu horeyn bal waxaad noo sharaxdaa tartankan iyo balgeedi socodkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim tartankan ugu horeyn waxa weeyaan ku loolamaya 8 degmo ka kooban yahay gobolka Erer xarunta lagu qabtay waa xarunta Fiiq magaalada Fiiq garoonka Raago Ugaas magaalada Fiiq halkaas lagu qabtay tartankan intii uu socday wuxuu ahaa tartankii ugu quruxda badnaa ugu saameynta badnaa si nabadgelyo ilaahay hadda ku soo socday maanta waxa la ciyaarayaa kaalintii saddexaad ee hadda la ciyaarayaa degmada Ligeedii degmada Mayo ee hadda ciyaaraya labada degmo ee finaalka soo gudbeen waxa weeyaan degmada Yaxoob iyo degmada Fiiq oo berrintii hore gali ka dambe hadda la yiraahdo Jumcaha aanu ballansanahay weeyaan tartanku si guud si nabadgelyo oo qurux badan oo dhinac walba aan ka soo dhisno ka soo aabulay annaga oo isku dhufan annaga iyo federationka gobolka Erer maamulka gobolka iyo degmooyinka gobolkaba si qurux badan oo dhinac uga istaagnay iyo bulshaduba ayuu noogu socday tani intii aan tartanka soo wadnay aad iyo aad buu noo socday si qurux badan waa gartay sanadii hore ee 2014 iyo farqiga u dhaxeeya muxuu yahay sanadka 2015 tartanka Muxidiin horta aad iyo aad baad maadsantahay sanadkii hore halkan baan ku qabanay horta oo garoonkan waa markii labaad ee ku qabanay nasoo hela markii sanadkii labaad inaan ku qabanno sanadadii ka horreysay ogtay carro ciida lagu ciyaari jiray ama meel kulka la xadxaadhay bay ahaan jirtay sanadku tartanka wuxuu kaga duwan yahay garoon rooga oo cagaaran oo spacekiisi dhameystiran yahay oo intii loogu talagalay ay isu jirto ballac iyo dheerarkii loogu talagalay garoomada caadiga lagu ciyaari jiray weeyaan horta marka ugu horeysa waxa kaga duwantoo kale waxa weeyaan sanadkii hore adaa computer noo ahaa Soomaali baa lagu computer gareynay sanadkan laakiin waxa weeyaan Carabi inoogu baxay oo waxa tiri anagu bean sport iyo waxa noqonaa deegaanka Carabi baan ku bixinaynay sanadkan Carabi ku baxay waa midda koobaad midda labaad waxa weeyaan dheenyaha sanadkii hore waxaan ka soo qaadan jiray deegaanka hadda dheenyaha noo daadihinay waa dheenye lagu kalsoon yahay oo aan ka soo xulay gobolka Erer aan ka xulay dheenyuhu waxyaabaha ugu duwan yahay waxyaabahaas ka mid ah waxa kale oo diyaarinay abaalmarino kala duwan sanadkii hore degdeg buu nagu ahaa abaalmarino sanadka way soo dul saaran yihiin ilaa hadda sanadkii hore yar buubuuq iyo waxyaabo yar jiri baa jiri laakiin sanadkan hadda ma jiro wax buubuuqa si kalsooni iyo cadaalad ah ayuu socdaa wuxuu kaga duwan yahay waa sidaas federationkii oo isaguna dhisan oo gudoomiyihii leh gudoomiye ku-xigeenkii leh xubnihii kale ay joogan yaa iyaguna noo adeegay markaas si guud tartankan waxa kale oo la loogooyin inaad arkaysiin kalma calaamada looga oo degmo walba waxay caan ku tahay aan ku salaynay tii kalluunka ku lahayd kalluunkii bay lahayd tii ma taqaanaa ku lahayd waxyaabaha soo saarka malabkii bay lahayd tii buuraha caankii ku ahayd waxyaabaha ay ku kala duwanaayeen 8 degmo oo calaamadoodii aad ka arkaysiin beejka waxa kale oo isu kaana dul saaraa technically oo noo shaqeynay yaa jiri oo gelinka hore iyo gelinka dambe ciyaaraha warbixintooda oo kooban baa la soo daabacay beejka lagu isticmaalay oo soo geelinayn oo si cid walba ay ula socoto taas lafteeda way kaga duwan tahay waxa jira cameraman fara badan oo iyaduna xarunta jooga hadda oo aad iyo aad sawirro qurux badan noo qaaday marka waxyaabahaas oo markaan fiiriyo sanadkan tartan qurux badan oo isu dheelitiran oo si tartan loogu talagalay ayuu ahaabaan aaminsan waad maadsantahay waxaan u gudbayaa gudoomiyaha xiriirka dhalinyarada ee gobolka madaxa federationka ayaan u dhawaanaya soo dhaw mudane aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo xiriirkii nin dhalinyara oo aan ogahay inuu kubadda wax badan ka yaqaano soo dhaw ugu horeyn bismillaah waan dhawahay Muxidiin Erer TV aan ku soo dhawahay waxaad ku maasantiin ka soo qayb galka nagala soo qayb gashay tartarka maanta waxa weeye maalinta kaalinta saddexaad baa la ciyaaraya degmada Ligeedii iyo degmada Mayo bari insha Allah niska dambena waxa ciyaaraya degmada Fiiq iyo degmada Yaxoob finaalkii إن شاء الله مركز وحنا الله هنا نقلق قيب عشان عيارته مرتقى صارت نوتين ديار أدب ما تسنتاي مركن أنت كلمة dhalinyarada aad uga dhowdahay maamulkii gobolka hatta focalka wada uga dhowdahay dhalinyarada maxaa sanadkan ku qorshaysan waxa jira championkii degmooyinka
haddii soo baxdo iyo xoob iyo haddii soo baxdo fiiqba maxaa ku qorshaysan Confederation ahaanna waxaan noo qorshaysan in degmada tartan noqoto championska gobolka Erar inay noqoto degmo ciyaartooygeedu tayeysan yahay waxtar badan leh garoonkana ka dhex muuqata tartanka heer deegaan ee degmooyinkana in insha Allah noqoto degmo laga sheekeeyo oo la yiraahdo degmadaas aleelaha tartankii ee gobolka Erar ka qayb gashay degmadii qaaday way u qalantay ayaan noo qorshaysan soo xarabna xagga waxa ugu muhiimsan marka ciyaar la yiraahdo waa shuruucda iyo qawaaniinta isboortiga marka ciyaartooyadu waxaan rabnaa inaan ka dhisno xagga anshaxa xagga qaanuunka iyo dhammaan waxa weeye facility-ga dhan ay u baahan tahay ciyaaruhu inaan ciyaartooyada degmooyinka inaan ka caawino federation ahaan noo qorshaysan waa gartay dhanka sharci dejinta sanadkan saa jeclay waa ka duwan yahay sanadadii hore haddaan qaldanayn 2 iyo 3 midkood ma nooga taaban kartaa waan ka taaban karnaa kow sanadkan waxaan u ogolaanay dhammaan ciyaartooyada gobolka Erar in meesha ay doonaan ay ka soo qaadan karaan ciyaartooy taas oo sanadkii hore noogu keentay waxyaalaha ka baranayba ka mid sanadkii hore ay buuq noogu furtay marka sanadkan waxaan go'aaminay federation ahaan in ciyaartooyadu ay u furan yihiin ciyaartooy tayaaleena garoonka la keeno taas aan ku ka ahayd talabaad waxa weeye file system baan ku shaqeynay tartanku intuu socday waxa weeye ciyaartooyadu xeerosaadkii oo dhameystiran oo waxa weeye ka saxiixnay kabtanka madaxda sportiga degmada iyo xubinka coachka degmada wata oo xeerosaadkii oo dhameystiran ilaa qodobadiisa nooc walba haday noqoto anshaxa raafaanka wax walba waxa weeye qodobadiisa waa noo diyaarsan xeerosaadka taa marka laga yimaado file system ayaan ku shaqeynay tartankan sanadkan waxa weeye dhammaan 7 degmada gobolka Erar nasiib wanaag degmada sallaxaad baan nagala soo qaybgelin oo waxa weeye nimcooyinka rabbi baan saameeyay oo roobabkii ayaa noo suurtagelin waa inay nagala soo qaybgasho marka tartanka 7 degmo ay ka suurtagalay marka waxaan oo dhameystiran marka file-kii aan ku shaqeynay tartanka sanadkan inuu si wana khalkhal nooga gelin file system ayaan ku shaqeynay macal sawirkii iyo ciyaartooyadii degmadii 24 ciyaartooy ayay koox walba soo gudbisatay iyo listadii 22 ciyaartooy sawirkoodii oo dhameystiran iyo file-koodii oo dhameystiran boogan ayuu noogu jiraa martam khalkhal ma soo galayo ciyaartooyga la soo gudbiyay listigiisa edikaarka batchkiisa uu haysta garoon ku soo galaya anagana file systemkan baan haysanaa ciyaartooyga marka halkan buu naga muuqanaya hadii laga waayo ka baxaya tartanku ma jiro ka baxaya qawaaniinta weey xagga adayga sharciyada markay noqoto ganaxyo fara badan baa jira xagga anshaxa xagga garsoorayaal fara badan ilaa hadda insha Allah marka ciyaar tartanku noo dhamaadana garsoorayaal fara badan iyo waxa weeye coaches fara badan iyo ciyaartooy fara badan ganaxyo aan saarnaa doonayna ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxay tahay tartankii gobolada ayaa iyaguna foodo ku haya tartanka magaalooyinka deegaanka Soomaalida oo dhawaan lagu wada inuu ka dhaco caasimadda Jigjiga tartanka gobolada intee leeg bay diyaar garowdeen aad baan ugu diyaar garoonay sababtoo darbigan xamaasad buu leeyahay doorkii hore finaalkan tagnay penalty laga qaaday doorkan xitaa penalty-na laga qaaday insha Allah xagga rabbi mooyee aan biitan barana ku qaadno doorka waxa noo qorshaysan tartanka ciyaartooy tartanka heer gobol inaan biitan ku qaadno insha Allah sababtoo waxyaalo fara badan baan lagu xantaay doorkan iyada waxaan jeclahay koobku inuu Erar iman doono dhan walba akhlaaqiyan waliba anagoo dhisan waxaan jeclahay ciyaartooyada gobolka noo matalaya hal mar xitaa inaan anshaxumo laga soo gudbinin taas aan qorshaysan aad baa maadsantay madani aad baa maadsantay wahagaag baan sawran doona wahagaag intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintii koobneed ee idinka soo diyaariyay tartanka tobnaad ee 8 degmada gobolka Erar ana Maxidiin Maxamed Cabdullaahi waday Daala TV barbaarinta dhalinyaradu waa dantaada waa dantayda waa danteena sayo nabadgelyo thanks